xaflad caleema saar oo maanta ku qabteen gudaha magaalada Boorame ee xarunta gobolka Awdal beesha reer Duduub ay degtay degmada Quljeed kana mid ah beelaha gobolada galbeedka Soomaaliland ayaa waxay maanta si rasmi ugu shaaciyeen suldaan cusub ay yeelanayso beeshaasi aqoon-yahano wax garad cuqaal iyo mas'uuliyiin kala duwan ka soo qayb galay xafladan caleema saarkii maanta lagu shaacinayay sudaanka cusub ay yeelanayso beesha reer Duduub ugu waxa halkaas ka hadlay oo hadalkiisa kala dambeeyay qaar ka mid ah cuqaasha beeshaasi waxaana si rasmi u shaaciyeen in maanta ay taariikhdu tahay 17 bisha sagaalaad 2015 oo noqonay sudaanka guud ee beesha reer Duduub Suldaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad waxaana ka mid ah hadaloodii الرحيم halkan waxaan ku salaamayaa dhammaan ka soo qaybgalka Suldaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad sida fiican looga soo qayb galay ayaan halka ka soo dhaweynayaa dadka yimid oo dhan rag iyo dumar anigoo kamid ahaa murashaxiinta salaadiin suldaanka reer Duduub Cismaan maanta oo tahay maalin khamiiseed oo bisha ay tahay 17 bishii sagaalaad waxaan uga tanaasulay walaalkay Cabdi Cabdilaahi Qayaad murashaxnimadeedii taasoo waliba isaga maanta ahaan aan ku dooranayno magaalada Boorama guriga reer Duduub ee Uqaasha markaas gudaha iyo dibadaba wixii beesha Duduub Cismaan ah ee todobada jiliba waan isku raacsanahay waan ku soo dhaweynaynaa walaalkayo Suldaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad caleema saarka weynina wuxuu nooga dhici doonaa in geela ku qalayno bacda ciidka ama si ka horba xarunta Duduub Cismaan oo ah gorgorka oo u dhow Quljeed halkaasoo ku qali doono 7 gool sidaa dadkuna hawlo socdaan walaalahayga jooga meel kasta sidaasaan ugu hambalyeeynaa walaalkeena cusub ee suldaanka taageero waa inaanu la garab joogsanaa waa inuu taageero u fidiyaa oo had iyo jeer la isgarab taagaa baan leenahay Cabdi Cabdilaahi saarayna imaamadii isagiyo gelin iyo gelinba arinta aan ka shaqeynayni oo jirtay maanta ay bishu 17 tahay bishii sagaalaadna ay tahay ayaantuna hay khamiis tahay iyaan aqalkii ah belinta ku caleema saaray ma sha Allah inta kadib hadii Ilaahayna gaarsiiyo ducadii weynayd ee xoolaha lagu qalayna way noo dambaysaa gargoorkaana ka dhignay hadii eeba aqbal ma sha Allah sida hal loo ogaado hana lagu kalsoonaado dabadiyo baadiye iyo magaalada sida inay tahay hal lagu kalsoonaado wax yar baan halka ka cadeynaya oo mugdeeri ku jiray bariyahan waxa la wadwaday suldaan reer Duduub oo aad moodo makaariyoona lagu siday makartoon buu ku jiray goormuu suldaanka reer Duduub kontrabaan noqday suldaannimadu maaha mid tahriibaysa ama la tahriibay waa mid dadka beesha u dhashay si xaqa oo muwaadinimo ay u dooranayaan mid la dhuudhuumanaya ma suldaannimada maanta halkan aan u fadhino ee ku caleema saarayno Suldaan Cabdi Cabdilaahi Qayaad oo uga tanaasulay musharax Suldaan Jibriil aw Saciid oo sharaxna markaa ku hadlaya afka walaalkay
مصطفى ميعاد الآله هو إسنا كمدها مشرحين تسلادين تريد ذب وعوقتها نسيلي وحاليها إنما هذا meelaha miyiga lagu soo urursaday meelaha leeyahay boqol kaniyo war sultaan boqol laguma doorto sultaan dhalashinima lagu doortaa ma dad mani baarlamaankii deemalka loo daadinay waxaan waa dhalashanimo in qadaadic la isku daadaadiyo niman baa meel siru fadhiistay waxay yiraahdeen 3 bilood baan qabanay reedu 3 bilood iskugu yimaado qulijeed munaasabadani sida qiimaha iyo quruxda loo soo agaasimay ayaa waxa ugu dambeyntii soo xidhay suudaanka cusub ee beeshaas u dooratay inuu noqdo suudaanka guud ee beesha reer Dudub waxaana hadaladiisa kamid ahaa waxaan salaamayaa ummadda sharafta halkan isku timiday muxuu dhalinyarada cuqaasha odayaasha indheer garadka haweenka bacda saxaafadda waxaan ku salaamayaa salaanta islaamka assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh سلامكيد واحد سلام waxaan kala salaamayaa jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda Maxamed Siraayo madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland Abdulrahmaan Abdullaahi Ismaaciil Sayri iyo saddexda qol qaran ee jamhuuriyadda Soomaaliland ma salaamaya inta kadib fadhiyo badan kadib oo muxuu ahaa ka dhici jiray oo beesha reedba isku timid kadib waxay beesha go'aansatay in la dhiibo xilkan suldaannimada ee beesha reedidu aniga oo ila 20 sano dambeeyay سرديك بوليس جوجو واحد كدمينيا أمام قبل بوليس متعود جوجي هو محوها عاقل وشقيني ما أنت السلطان ما الله يقول دري وحلاي هاي ونكى يسوي شيء أول بوان قلادي ما أنت سواق كل يدي أول كأنه هذا الوجه هذا اللي تاجنا ما أنت السلطان كل الله يقول دري على الخال في يوم ما تمر لي يسمي وحنا الله هاي محوها beelaha ridul Usman in laga ilaaliyo carqalada iyo kala qofka iyo kala reerka laga ilaaliyo ma sha Allah magaalada madaxda Soomaaliya ee gobolka Awdal ee Soomaaliya laga taliyaalkan weeyaan hadii sultaan la dooranayo boorma lagu dooranaya tuulo lagu ma dooranayo sida dadku sheegana cali masaarkii weynaa iyo ducaduna wuxuu ka dhici doonaa halka odayaasha ay sheegeen dadka wax uu sheegaya أولاً وحنا على مسار هوش هذا على مسارتين لا يقرب قال يدعي آمين عدالة وحنا كل شقين يصدق قضب عدالة يم بالنمو يرون ومصطفى عرالي شبكة عالمية بورما تونفور مقالة بورما